إيش صار هذا؟ لبضبا صار ها بالكن ما بال صفادية ما هم وبالها استاندرك وصل ريوي هذا العالم هذا صهاو صوت وريا وصوت وريا وقبنا كوي صدح دوما كقلي هذا صوت قلان وكل دقيقة وحاسة دوا كل دقيقة بالك حواري سكور صدح دقيقة انت قف بالديوان قريبته ساعة دي مركب حين غانسة 60 دقيقة مصدح لو قلفتي سماها بقول لي سديت sidaad saaka wada jeedaan dhamaantiin waxaanu samaynaynaa tijaabinta macmalka ama tijaabinta hordhaca halkan waxaa ku diyaara dhammaan qalabka qaybihiisa kala duwan ee lagu talagalay in lagu diiwaan geliyo muwaadiniinta Puntland la rabo inay ka qayb qaataan insha Allah doorashooyinka soo socda qalabka qofku wuxuu marayaa process waxa laga soo buuxinayaa foomkii iyo magaranayay xogtiisa laga soo qaadaya iyadoo manual ah qof interviewer ah ka soo qaadaya marka labaad wuxuu imanayaa qofka operatorka ah oo ah ninka kidka fadhiya dushiisa fadhiya oo xogtii u bedelaya xogtii hardka ahayd u bedelaya digitalized oo computerka gelinaya xogta laftirkeeda processor afar marasa ta koobaad waxa weeye in xogta guud ahaan qofka laga qaado xagee ku dhalatay xagee rabtaa inaad ka codaysid iyo waxyaalaha noocaas inta marka laga xareeyo wuxuu gudbi doonaa in qofka laga qaado labadiisa indhood sawir labada indhood laga qaado kadibna processka saddexaad wuxuu noqonayaa in qofka laga qaado testarihii kurka ahaa kaas oo ID-ga loogu soo daabici doono insha Allah ka saddexaadna waa in la siiyo receipt ama shahaado بريتو marka kaarka la qaybinayo uu ku soo doonanayo si uu kaarkiisa ugu qaato ruuxantii waa process sina u fudud sina loogu talagalay in qofka lagu xaqiijiyo oo indhahan la qaadayo iyo wajigan la qaadayo dhamaantood waxa loogu talagalay qofka xogtiisa in si full ama si dhameystiran loo xaqiijiyo sidoo kale indhuhu waxaanu soo hormarinay indhaha in la qaado marka ugu horeysa sababtuna waxa weeye indhuhu waxay ka saxsan yihiin boqolkiiba boqol wajiga si qofka inuusan mar labaad isdiiwaan gelin loo adkeeyo maanta oo maalin axada ah bishuna tahay 13 November 2022 waxaan halkan ku sameynaynaa diiwaangelintii tijaabada ahayd waxaan shacabka reer Puntland ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan diiwaangelinta kuna galaan xamaasad iyo dardar barnaamijkan dimuqraadiyaddu ma ahan mid cid gaar ah loogu danaynayo ee waa barnaamij masiiri ah oo qof walba oo reer Puntland xaq u leeyahay haddaba dadka reer Puntland waxaan ka codsanaynaa inay isdiiwaan geliyaan doorashadana u diyaar garoobaan horseedna ay ka noqdaan barnaamijka dimuqraadiyadda dhaqso aan halkaas ku gaarnana waa dhaqso ay kaga faa'iidi doonaan dhammaan dhinacyada ku lug leh barnaamijkan masiiriga ah ururada siyaasadda waxaa laga rabaa inay sidaan si ka firfircoon uga qayb qaataan dawladdana sidoo kale waxaa laga rabaa inay barnaamijkan wax walba oo dhinacooda kaga dhiman ay soo fududeeyaan annaga ka guddi ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaan goob walba guri kasta iyo geed kasta aan geyn doono diiwaangelinta codeeyaha waxaanu nahay annagu guddi madax bannaan waxaanuna diyaar u nahay inaannu daadejinno dimuqraadiyadda tan waxaannu u diyaarsannahay qaab farsamo qaab dhan maaliyadeed waa ka diyaarsannahay dhanka wakhtigana waa ka diyaarsannahay marka muwaadiniinta reer Puntland oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay u diyaar garoobaan diiwaangelintii oo dhawaan bilaabanaysa tijaabadeediina maanta socoto aad iyo aad baan u mahadsantihiin waan idin salaamaya